Soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa waddan ay saameyn badan ku leeyihiin hay'adaha magaca gargaarka wata, waxaana lagu eedeeyaa inay xaalka Soomaaliya qaarkood siyaabo kale uga faa'iidaystaan. Toddobaadkan, hay'adaha qaarkood waddanka Soomaaliya waxa ay ka faafiyeen falal fool xun iyo been abuur, taasoo la yaab ku noqotay Soomaalida. Waxayna hay'adaha Soomaaliya ka shaqeeyaa sheegeen in gabdhaha da'da yar ee Soomaaliyeed sidii badeecada loo iibgeeyo ama lagu khasbo inay jirkooda ka ganacsadaan si ay biyo u helaan. Warbixin lagu daabacay wargeyska iNews oo ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa hay'adaha ka shaqeeya Soomaaliya waxay kaga hadleen abaarta, laakiinse ka hadlidda abaarta hay'aduhu waxay ka sameeyeen sheekooyin iyo falal xunxun oo been abuur ah oo aanay Soomaalidu dhaqan u lahayn, oo aan ka suurtoobin meel kastoo ay joogaan iyo xaalad kastoo ay ku sugan yihiin dadka Soomaaliyeed. Waxaana warbixintan lagu sheegay in gabdhaha da'da yar ee Soomaaliyeed loola dhaqmo sida badeecada oo lagu beddesho xoolo iyo biyo, iyadoo wargeyska iNews uu soo xiganayo xogo ay bixiyeen hay'adaha gudaha Soomaaliya ka howlgala. Sidoo kale waxaa warbixinta lagu sheegay in gabdhaha da'da yar ee Soomaaliyeed lagu khasbo inay jirkooda ka ganacsadaan oo duruufta looga faa'iidaysto. Warbixinta ayaa intaas ku dartay in ragga Soomaaliyeed ee iska leh ceelasha biyaha laga dhaansado inay gabdhaha da'da yar ee Soomaaliyeed ay jirkooda biyo kaga beddeshaan, sida jumladan idiin muuqata ay caddaynayso. Warbixinta wargeyska iNews waxaa la socda sawirro ay hay'aduhu ka qaadeen gabdho ku nool qaar ka mid ah gobollada Soomaaliya ee ay abaaruhu saameeyeen. Sawirradan gabdhaha Soomaaliyeed laga qaaday ayaa laga dhigay inay mid kasta dhacdooyinkan oo kale si runa ay ugu dhaceen. Sawirrada gabdhahaas laga qaaday mid kasta waxaa ku hoos qoran sheekooyin been abuur ah, waxaana qofkii akhriya warbixintan ay hay'aduhu faafiyeen wuxuu u malayn karaa in dhibaatadan iyo falalkan foosha xun ay ka warrameen hay'aduhu inay gabdhahan ku dhaceen. Hay'adda Save the Children oo ka mid ah hay'adaha Soomaaliya ka shaqeeya ayaa dhowaan faafisay warbixin aan xaqiiq ahayn, taasoo ay ku sheegtay in 90% dadka Soomaaliyeed laga joojiyey lacagihii dibadda ee xawaaladaha loogu soo diri jiray. Aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee fahansan dhaqannada hay'adaha Soomaaliya ka howlgala ayaa sheegay sababta ay hay'aduhu waxyaabahan been abuurka uga faafinayaan Soomaaliya ay tahay farsamo ay ku doonayaan inay ku helaan deeq dhaqaale oo tiro badan, iyagoo arrintaas ku micneeyey xaalad abuur. Ganacsade Ismaaciil Axmed ayaa soo jeediyey in dowladdu la xisaabtanto hay'adaha oo ay ka dalbato inay caddeeyaan meelaha ay ku arkeen falalka foosha xun ee ay dalka ka faafiyeen. Marka ay ku caddaato inuu mala awaal yahay waxyaabaha ay faafiyeen, ayuu yidhi, waa in lagu khasbaa inay saxaan khaladkooda, raalligelina ka bixiyaan warkan foosha xun ee ay dadka Soomaaliyeed ka faafiyeen.